waxaa maalmahan aad u sara kacay dood diimeed oo dadka ka hadla loogu yeero sheekh. waxaa jira dad jaamacad diimeed ka soo baxay oo aan loogu yeerin sheekh iyo kuwa dharka culimada xirto oo loogu yeero sheekh. bal waxaa eegi doonaa waa maxay sheekh, yaa sheekh ah, maxay tahay sheekhnimadu. sheekhnimadu waa darajo sharafeed oo loo aqoonsado qofka inuu leeyahay aqoon diimeed iyo awood hogaamineed oo sare. sheekha waxaa looga baahan yahay inuu noqdo qof qoto dheer u leh diinta islaamka, lehna akhlaaq wanaagsan. darajada sheekhnimadana waxaa lagu gaari karaa dhowr hab, waxaana arrintan fududeynaysaa in qofku uu raaco dariiqooyinka cadcad ee diinta islaamku ay tilmaamtay. sheekhu waa inuu lahaadaa sifooyinkan soo socda. lambar 1, aqoon diimeed. barashada qur-aanka kariimka ah iyo xifdintiisa ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee loo baahan yahay in laga bilaabo. qofka sheekha noqonaya waa inuu leeyahay faham qoto dheer oo ku saabsan macnaha iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah. barashada axaadiista. waxaa kaloo muhiim ah in la barto axaadiista nebiga, nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee, kaasi oo ah il kale oo muhiim ah oo cilmiga diinta islaamka ah. fiqiga iyo axaadiista. fahamka shuruucda iyo axkaamta islaamka waa aas-aas kale oo loo baahan yahay. waxbarashada fiqiga waa inay ku salaysnaataa madhab gaar ah oo la raacayo, sida shaaficiyada, xanafiyada, maalikiyada ama xanaabilada. lambar 2, akhlaaq iyo usluub. sheekhu waa inuu noqdaa qof wanaagsan, akhlaaq suuban leh, oo dadka kale u yahay tusaale wanaagsan. habdhaqankiisa iyo sida dadka ula macaamilayana waa arrin muhiim ah. lambar 3, khibrad iyo hogaamin. waa inuu lahaadaa khibrad ku filan oo ku saabsan waxbarista dadka, khudbadaha iyo hanuuninta bulshada. hoggaanka diimeed wuxuu u baahan yahay xirfad iyo dulqaad badan. lambar 4, ka qayb qaadashada waxqabadka bulshada. in laga qayb qaato waxqabadka bulshada iyo daryeelka danaha dadka waa arrin muhiim ah. sheekhu waa inuu yahay qof u adeegaya bulshada kana warqabaya baahiyadooda gaarka ah. lambar 5, waxbarashada iyo sii wadidda waxbarashada. waxbarashada iyo cilmi raadintu waa inay noqotaa mid joogto ah. sheekhu waa inuu ku dadaalaa inuu mar walba kasii hormaro aqoonta diinta iyo dhinacyada kale ee muhiimka ah. isku soo wada duubo, sheekhnimadu waa darajo ku timaada dadaal dheer iyo dhabar adeyg. qofka doonaya inuu gaaro darajadan waa inuu u diyaar garoobaa inuu qaado safar dheer oo cilmi baaris iyo adeeg diini ah. waxaana muhiim ah in sheekhu uu noqdo qof dulqaad badan, aqoontiisuna ay noqon karto mid uu ku kasbado dadka uu horjoogo ama ku hareeraysan. yaa sheekh ah, maxay tahay sheekhnimadu.